inta aadan bilaabin inaad wadada isticmaasho waa inaad garataa ama aqoonsataa isgoysyada. sidaasi darteed hortaada fiiri, waxaad garanaysaa durbaba in wadada isgoys ay tahay ama mid isdhaafsan. kadibna dhanka bidixda fiiri, kadibna dhanka kale ee midigta. ama waxaad ku garan kartaa astaantan oo kale. sida looga leexdo wadada weyn dhanka bidixda ah adigoo galaya wadada yar. si aad ugu leexato wadada dhanka bidixda ah waa inaad bilowdaa nidaamkii MSM-ka ama sida aad ula macaamilooto wadooyinka kaleba. iska fiiri wadada dhanka midigta ah, waa intaasi uu gaari si kadis ah kaaga soo baxaa. sida loogu leexdo wadada weyn midigta adigoo galaya wadada yar. si aad ugu leexato wadada dhanka midigta ah waa inaad bilowdaa nidaamkii MSM-ka ama sida aad ula macaamilooto wadooyinka kaleba. iska fiiri wadada dhanka bidixda ah, waa intaasi uu gaari kale si kadis ah kaaga soo baxaa. sida loo dhaafo isgoysyada. markaad doonayso inaad wadada weyn hore ugu sii socotaa waa inaad bilowdaa nidaamyadii hore adigoo ka taxadaraya halis waliba. waa inaad iska fiirisaa labada dhinac, waa intaasoo gaari kale si kadis ah kaaga soo baxaa. sida laysku dhaafsiyo gawaarida isgoysyada dhexdooda. markaad doonayso inaad ku leexato wadooyinka qaar waxaa laga yaabaa inaad iska hor timaadaan gawaari kale oo sidaada oo kale doonaya inay dhanka kale u leexdaan. markay sidaasi dhacdana waxaad leedahay 3 doorasho. inaad isdhinac martaan. sida caadiga ah inaad isdhinac martaan adiga iyo gaariga kale ma ahan mid nabadgelyo ah, maxaa yeelay gaariga kale waxaa laga yaabaa inuu kaa xiro aragtida ama waxa hortaada ka soo muuqan lahaaba. sidaasi darteed waxaa kugu adkaanaysa inaad gaariga si buuxda u maamusho ama aad ula socoto xaaladiisa. inaad isdabamartaan. nidaamkani waa inaad gaariga kale dhanka dambe aad ka marto isagana sidaasi uu sameeyo. qaabkani waa nidaamka ugu nabadgelyada badan uguna macquulsan. maxaa yeelay labada darawal waxa u suurtagalaysa inay arkaan gawaarida hortooda soo socota si ay go'aan ugu qaataan in ay leexdaan iyo in kale. mararka qaar waxaa dhacda in gawaarida ay ku istaagaan iyagoo kuu muujinaya inay wadada ku siiyeen. taasina ma ahan mid wanaagsan oo waxaa laga yaabaa in gaarigaasi uu kaa qariyo gawaari kale oo si xooggan wadada ku soo gasha. iska eegista wadooyinka lagu calaamadeeyay waa inaad gashaa halka ay astaanta ku taallo. sawirka dhanka midigtana wuxuu kuu muujinayaa inaad gawaarida isdhinac martaan. sida looga baxo wadooyinka yaryar loona galo wadooyinka waaweyn. mar waliba oo aad doonayso inaad waddo kale gasho waa inaad leedahay taxaddar badan, iskana eegtaa midigta iyo bidixda haadadkooda. haddii aysan wadada wax gawaari ah aysan maraynin waa inaad ula macaamilootaa sida T junction-ka ama wadada T-da loo yaqaano. mar walibana waa inaad taxaddar muujisaa. sharciga guud waa inaad mudnaanta siisaa gawaarida ka imaanaysa dhanka midigta ah. haddaba marna ha rumaysan inaad adiga mudnaanta ka leedahay gawaarida kale, maxaa yeelay darawallada qaar ayaa doonaya inaysan sharciga ku dhaqmin oo iyaga ay kaa hormaraan. markaad u soo dhowaato wadada isgoyska ah waa inaad eegtaa leenka aad kaga sugan tahay wadada, iskana fiiri labada dhinac. haddii aysan baabuur ka soo dhoweyn wadada waxaad ku sii socon kartaa xawligii hore mid u dhow adigoo aanan saydkaadiga ka bixin. inta badan wadooyinka isgoysyada iskuma aadana. sidaasi darteed saydka aad kaga sugan tahay wadada waxba kama duwana kuwii hore. haddaba waxaa lagaa doonayaa inaad iska hubsato gawaarida kale halka ay u leexan rabaan inta aadan wadada gelin. isgoysyada ciriiriga ah. isgoysyada ciriiriga ah waxay sabab u noqdaan in gawaarida wadada ay iska sugtaan.
sidaasi darteed waa inaad ka taxadartaa mar waliba waddada aad galayso. isgoosyada aan calaamadaha lahayn. markaad doonayso inaad gasho waddooyinka qaar, gaar ahaan kuwa aan astaamaha lahayn, waa inaad taxadar badan muujisaa. sidaasi darteed markaad isgoyska afaafkiisa hore soo gaarto, waa inaad gaariga istaajiso si aad ugu fogaato gawaarida aan loo meeldayin, isla markaana aad isku dhacdaan. sida loogu leexdo isgoysyada mashquulka badan. intaan cashirkan ku guda jirno waxaan baran doonnaa sida loo galo waddooyinka aadka ugu mashquulka badan. u leexashada dhanka bidixda ah. marka koowaad waa inaad fiirisaa dhankaaga midigta ah si aad u hesho meel dhextaal ah ama fantax ah oo aad waddada ka geli karto adigoo aanan gawaarida kale xawligooda hoos u dhigin. waa inaad eegtaa labada jiho ee gawaarida isku dhaafayaan. haddii ay gawaarida aad isugu dhow yihiin, waa inaad bareegga gacanta gelisaa gaariga, isla markaana aad yeelataa dulqaad badan. haddaba ha qaadan halis ama khatar macno dara ah. markaad hesho fursad aad waddada ku gasho, waa inaad xawliga gaarigaaga aad kordhisaa. u leexashada dhanka midigta ah. marka aad soo gaarto waddada T-da ama T-junction-ka, waa inaad eegtaa dhanka midigta ah. fiiri labada dhinac ee gawaarida isku dhaafayaan. haddii aad aragto in gawaarida ay isa soo hayaan, waa inaad bareegga gacanta gelisaa, isla markaana yeelataa dulqaad badan. ha qaadan halis macno dara ah. goor dhow waad heli doontaa fantax ama dhextaal. markaad hesho fursad aad waddada ku gasho, waa inaad xawliga gaarigaaga aad kordhisaa. haddaba waa inaad mar walba xasuusnaataa xawli kordhinta gaariga markaad waddada gasho. sidaasi oo kale waa inaad xasuusnaataa inaadan marna ka bixin xawligii loogu talagalay waddada inaad ku marto. haddii aad doonayso inaad gasho wadda T ah oo ay gawaari hortaada kaa qariyaan, waa inaad si deggan gaariga horay ugu soo kaxaysaa ilaa aad waddada si buuxda u aragto. taxadar badan waa inaad muujisaa adigoo gaariga maamulaya. sida loo galo waddada loo yaqaano wayda ama ya'da. sida loo galo waddada loo yaqaano wayda ama ya'da waa isku mid waddadii hore ee T-da. si waliba ha ahaatee, waddada aad markaani ku sugan tahay waa mid ka yara duwan middii hore ee T-da. waa inaad halka hore u soo dhowaataa si aad wax ugu aragto hortaada. sidaasi oo kale waa inaad taxadar badan muujisaa si aysan tiirarka gaariga aysan kaaga qarin waxyaabo aad u yaryar, sida mootooyinka iyo baaskiilada. kana taxadar waddada nabadgelyadeeda mar waliba.